sida la wada ogsoon yahay dalka Itoobiya waxaa soo maray maamulo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen kuwii boqortooyada Hayle Salaase iyo waliba tii ugu dambeysay ee dargiga macangaga ahaa kaasoo ahaa keligii tilis cadaadis badan isla markaasna meesha ka saaray xaquuqihii ay xaqa u lahaayeen qoomiyadaha iyo shucuubta kala duwan ee dalka Itoobiya oo ay ka mid ahayd helidda sinaan cadaalad iyo ku noolaanshiyaha xorriyad taabanaysa nolosha aasaasiga helidda maamulo u gaara iyo isku maamulka afafka qoomiyadaha dhammaan keligii taliskii dargigu waa uu duutiyay xaquuqahani iyo kuwa kale cadaadis iyo tacaddi badan oo uu ku sameeyay dargigii qoomiyadaha iyo shucuubta dalka Itoobiya oo ay ka mid tahay qoomiyadda Soomaalida Itoobiya ayay u adkeysan waayeen waxayna keentay in shucuubta iyo qoomiyadaha dalku ay sameeyaan kacdoonno ay kala soo horjeedaan nidaamkii dargiga halgan badan kadib oo ay shucuubta iyo qoomiyadaha dalka Itoobiya u galeen helidda xaquuqahooda waxay ku guuleysteen inay meesha ka saaraan nidaamkii dargiga ku salaysnaa cadaadiska iyo caburinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka Itoobiya waxaana dalka ka curtay nidaam ku salaysan dimuqraadiyad sinaan iyo cadaalad oo noqday waa cusub oo u bariyay shucuubta iyo qoomiyadaha dalka Itoobiya gaar ahaan qoomiyadihii sida gaarka ahaa uu hagardaameyay keligii taliskii dargiga iyo kuwii ka sii horeeyayba Itoobiya waxaa ka curtay dawlad dimuqraadiya oo tixgelinaysa xuquuqaha qoomiyadaha iyo tan shakhsiga nidaamka cusub waxa uu ogolaanayay in nidaamka asxaabta amaba se ururada lagu tartami karo laguna maamuli karo dalka Itoobiya guud ahaan dalka Itoobiya markay ka dhalatay dimuqraadiyadda shucuubaha iyo qoomiyadaha kale ee dalku waxa ay ka faa'iideysteen nidaamkan iyo waaga cusub ee u bariyay 20 sano ee la soo dhaafayna waxay ummadooda u horseedeen horumar maamul suuban iyo nabadgelyo waxayna marayaan meel aad u fiican balse marka la eego deegaanka Soomaalida waxaa ka jiray dib u dhac marka la barbar dhigo deegaanada kale ee wadankeena sababaha ugu waaweyn ee dib u dhaca ku keenayna deegaanka Soomaalida waxaa ka mid ahaa nidaamka asxaabta iyo ururada ku salaysnaa ee ka dhashay deegaanka Soomaalida xilligii dargigu dhacay kadib oo tiradoodu dhannayd 14 kuna salaysnaa intuba ururo qabaa'il isla markaana ay majaraha u qabteen xubno saraakiil sare ka hayay dawladdii shuuciga ahayd ee dalka Soomaaliya isla markaana aan qaadin kareynin nidaamka dimuqraadiyadeed ee ka bilowday dalka waana taasi meesha qaladkii ugu horeeyay ee deegaanku ka dhacay hogaaminta dad aan ku hogaamin karin nidaamka dimuqraadiyadda deegaanka ayaa keentay nidaam darro dhibaatadaasina waxa ay abuurtay inay ka dhashaan deegaanka Soomaalida ururo nabadiida taasoo laga soo qaadan karayo ururka nabadiidka ubo oo isagu u geystay xasuuq tiro badan beesha uu nasab ahaan sheeganayo in uu ka soo jeedo taasoo ah mid aan cidnaba ka qarsoonayn dhanka kale waxaa xaqiiq ah in dhibaatooyinka iyo waliba maamul darrada dhacay ay saameeyeen guud ahaanba deegaanka Soomaalida dadka degan waxaana la soo qaadan karaa beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar oo kamida beelaha deegaanka Soomaalida dega sanadku markuu ahaa
1992 tirsiga dalkeena Itoobiya beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar oo kamida beelaha deegaanka Soomaalida ayaa sheegatay cabasho ku saleysnaa takoor siyaasadeed taasoo keentay in ay isku urursadaan tuulooyinkii deegaanka Soomaalida ee ay deganayeen una guuraan deegaanka Raaso halkaas oo uu ka dhacay isku dhacyo qabiilo geystay in ay ku nafwaayaan dadaado tiro badan labada dhinacba dagaalkaasi markii uu istaagay ayaa beeshu bilowday dacwad ka dhan ah dhammaan deegaanka Soomaalida waxaana dacwadda kamid ahaa inay dawladda federaalku siiso maamul ka madax bannaan dawladda deegaanka Soomaalida oo si toos ah u hoostaga dawladda federaalka kaasoo ah gobol ama degmo si uu ugu suurta galo hamigoodu waxa ay qaadeen qaar ka tirsan beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar tallaabooyin dhanka sharciga iyo dastuurka iyo waliba nidaam dacwo ah oo aan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga dalka u dejisan oo ay ku diideen kamid ahaanshiyaha dawladda deegaanka Soomaalida isla markaana ay qaadeen tallaabooyin ay ku hor istaagayaan dhammaan laamaha kala gedisan ee dawladda deegaanka Soomaalida ayna sheegeen in aysan dawladda deegaanka Soomaalida soo faragelin deegaanka Raaso arrintaasi waxa ay sababtay inayna dawladda deegaanka Soomaalidu dhisin maamul loogu talagalay deegaanka Raaso sidaas daraadeed muddo 10 sano ah kama jirin deegaanka Raaso wax maamul ah oo hoos imanaya dawladda deegaanka Soomaalida beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar waxay sii wateen dacwadooda ay ku rabeen in la siiyo maamul ka madax bannaan deegaanka Soomaalida waxayna geliyeen arrintaasi dadaal badan sidii ay uga miro dhalin lahaayeen dadaalkaas ay ugu jireen waxa uu ahaa mid naf iyo maal iyo waqtiba leh haddaba waxaa xaqiiqo ah in ay jiitantay ka miro dhalinta sanadba sanad ay u sii dhiibaysay isla markaasina ay ka gaari waayeen wax natiijo ah waxa ayna jirtay hadallo propaganda ah oo muddadaasi la isla dhexmarayay sheegayeen in xafiiska Federationka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya uu ku dhawaaqay ama ku dhawaaqay doono gobol ama degmo la siinayo beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar hoos imanayana federaalka taasoo rajo gelinaysay qaar kamida beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar waxayna taasi sababtay in waqti badan ay ku lumiyaan muddo kadib waxaa bilaabatay in qayb kamida beeshu ay ka niyad jabto dacwadaasi isla markaasna ay garwaaqsato in dacwadan wax ka sii yahay kuwaas ayaa waxa ay bilaabeen in iyaguna dhanka kale ka bilaabaan dacwad deegaanka Soomaalida ay kaga raadsanayaan xuquuqdooda dacwadani oo muddo badan socotay ayaa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida maamulka haatan gacanta ku haya ka jawaabay dacwooyinka shacabka isla markaasina ka duulaya sidii uu maamulkiisa u gaarsiin lahaa dhammaan goobaha dadku degan yihiin waxa uu ku soo biiriyay qaab dhismeedka dawladda deegaanka Soomaalida 15 degmo oo cusub taasoo ay kamid ahaayeen dadka baahidooda looga jawaabayay ayna rabtay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalidu inay gaarsiiso maamulkeeda waxaana kamid ahaa deegaanka Raaso taasoo ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalidu u aqoonsatay degmo Raaso oo ay kamid noqotay qaab dhismeedka deegaanka degmadaas oo ka dhaxaysay dadkii deegaanka wada deganaa ee hadda ka hor dagaalku ku dhaxmaray maamulka dawladda deegaanka Soomaalida ee haatan ka taliya deegaanka ayaa magacaabay maamul u gaara degmada Raaso kaasoo noqday markii ugu horeysay maamul dawliya oo ay yeelato degmadaasi Raaso loona dhisay gudoomiyaha degmada Raaso iyo maamulkiisii ayna sidaasi ku tageen degmada Raaso waxaa markiiba bilaabmay in beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar magacowga maamulkaasi kadib ay u kala baxaan laba qaybood kuwa qaata maamulka iyo kuwa diiday
taasoo keentay in qayb ka mid ah iyagoo diidan maamulka deegaanka Soomaalida ay hoos imanayaan ay ka tageen deegaanka Raaso una gudbeen deegaanka Oromida gaar ahaan tuulada Bakool ee degmada Reytu. muddo kadib waxaa dhacay khilaaf dhexmaray beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar. khilaafkaasi oo ay dad ka mid ahaa beesha Sheekhash oo deganaa tuulada Bakool ee degmada Reytu ay weerar ku soo qaadeen degmada Raaso, halkaas oo ay ku nafwaayeen 150 qof oo labada dhinacba ah. dhibaatadaasi ayaa noqotay dhibaato aysan fiirsan karin xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida iyo tan federaalka oo aad looga naxay. si loo joojiyo dhimashada iyo qasaaraha beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar, xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ku codsatay xukuumadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya ciidanka federaalku in uu kala dhaxgalo lana joojiyo colaadda, waxaana si dhaqso ah loo geeyay ciidanka federaalka looguna guuleystay loona joojiyay dagaalkii beesha. haddaba si xalka madambaysa loogu helo arinta Raaso, waxaa shir qoto dheer galay xafiiska Federationka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyo xafiiska madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida, waxayna falanqeeyeen dhibaatada taasoo xukuumadda deegaanka Soomaalidu soo dhigtay in la qabto shir loo wada dhan yahay. shirkaasoo ay ka soo qayb galaan xafiiska Federationka iyo xafiisyada kale ee federaalka ee ay khusayso arintani. dhanka kalena xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida oo ku eedeysay in qaar ka mid ah fikradaha qaladka ah ee aaminsanayeen beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar ay deegaanada Oromiya iyo Hereridu ay siinayeen talooyinkan qaldan, sidaas laajigeedna ay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida u gudbisay dacwadani xukuumadda dhexe ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, taasoo ay ku dacweynayso deegaanada Oromiya iyo Hererida. waxaana xukuumadda dhexe ay ku wargelisay deegaanada Oromiya iyo Hererida inay ka soo qayb galaan kulankani lagu soo afjarayo dhibaatada dabada dheeraatay ee deegaanka Raaso. shirkaas oo ay ka soo qayb galayaan beesha reer Fiqi Cumar ayaa lagu go'aamiyay in lagu qabto magaalada Diridhaba, waxaana si rasmi ah shirkaasi uga bilaabmay magaalada Diridhaba. shirkani ayaa waxaa hogaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo afayeenka golaha Federationka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya mudane Kaasa Takle Burhaan, ayna goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin ka socday xafiiska arrimaha federaalka. shirkani ayaa beesha reer Fiqi Cumar u kala qaybsanayeen labo maalintii ugu horeysay, iyaga oo ku kala qaybsanaa dhinaca fikradaha iyo eeda sheegashada. odayaasha beesha reer Fiqi Cumar ayaa ku kala fogaa fikradaha iyadoo mid walba dhankiisa ka eed sheeganayo dhanka kale. waxaan isku soo diidnay Bakool baan isku soo diidnay, ma aanan wada soconin. goonidanada ayaan u kala soconay in aanan la noolaan karaynin kililka shanaad. kililka Soomaalida lama noolaan karo, sidaasaanu leenahay. mar labaad baan ku celinayaa Soomaali ma nihin. horta Soomaali dhalasho ma aha, abtirsiini ma marto, diinna ma aha, labadaa midna ma aha. laakiin lahjada Soomaalida waan ku hadalaa, lama noolaan karo yaan leenahay oo lama noolaan karo. waan ka xaal siinayaa Soomaali oo dhan, waan xaal siinayaa. walaalayaal raalli ahaada, Soomaali ha xaal qaadato, ha raalli ahaato. ciisaanu joognaa deegaankii ciisahaanu hadda dhex taagannahay, waanan dafiraynaa inay Soomaali yihiin. waxaanu dafiraynaa reer Liibaan baan dafiraynaa, waxaan dafiraynaa reer Afdheer oo dhan baan dafiraynaa, Soomaali oo dhan baan dafiraynaa. mana naqabata waxaas. walaalayaal Soomaalinimada ha ka bixina.
intaasi kadib ayaa waxaa qasab ku noqotay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida iyo tan federaalka in ay ka shaqeeyaan sidii dadkani kala fikir ka duwan la iskugu soo dhaweyn lahaa waxaana goobtaasi xukuumadda federaalku ku soo bandhigtay aragtideedu ku wajahan deegaanka Raaso iyo in dacwadda ay beesha reer Fiqi Cumar hor dhigeen ay go'aan cad siiso waxaana bilaabmay in la akhriyo dastuurka iyo waxa uu ka qabo arintan dalka ugu sareeyay dastuurka sida yaa qadam inda መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ቁርአን የምናነሳው ይሄ መጽሐፍ ነው ይህ ህገ መንግስት ያገርቱ የበላይ ህግ ነው የሶማሌ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስት በሶማሌ ክልል ውስጥ የበላይ ህግ ነው ማለት ነው dastuurka dawladda deegaanka Soomaalida waa dastuurka ama sharciga ugu sareeya ee dawladda deegaanka Soomaalida ay ka dhigantahay ይሄ ህግ ደግሞ ከፌደራሉ ህገ መንግስት ጋር በተጣጣመ መልክ ነው የወጣው dastuurka dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo la dhowrayo dastuurka dawladda federaalka ayaa la soo saaray ka dhigantahay caddaynta sharcinimada arinta Raaso iyadoo laga eegayo dastuurka dalka u dejisan iyo soo jeedinta go'aanka dawladda federaalka ee arinta deegaanka Raaso ayaa waxa ay bilaabeen qaar kamid ah ka soo qaybgalayaasha beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar inay eedu soo jeediyaan xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida waxaan leenahay madaxweynayaashii kala dhibkoodii oo la isku wada daray ku isagu noo geystay baa nagaga culus baan leeyahay qoladii hore cadownimo intay noo muujiyaan bay nagu soo duulayeenoo qoriga iyaga aan xoolaha iyaga ka gadanaan iskaga difaacaynay laakiin isagu si qoladii kale ayna ku guulaysaninoo siyaasad qabow abuu noo galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo eedeymaha ay u soo jeediyeen qaar ka tirsan beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar iyo waliba eedeymo kale oo odhanaya ubbo waxa ay si gaar ah u xasuuqday beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar ayaa uu ka jawaabay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar isagoo uga mahad celiyay beesha Sheekhash ama reer Fiqi Cumar inay qirtaan dhibaatada ay u geysatay ubbo waxaanu sheegay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar inaysan ubbo dhibaateyn oo kaliya beesha Sheekhash balse ay dhibaato iyo hageerdaamaysay dhammaanba bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaalida oo laga xusuusan karo xusuuqyadii ay u geysatay Cobale Gunagado iyo waliba meelo kale oo ka tirsan deegaanka Soomaalida kuwaas oo ay ku laayeen dad tiro badan maxaa ku rahay gobol iyo degmada federaalka hoos tagtaan raadinayna inayna isbixinayn taa wax aan ka ma jirtay war isma bixinayso Soomaalidu haatana maxaa ku rahay war arintaasu isma bixinayso dastuurka kuma taala arinta reer Fiqi Cumar ay raadinayaan istiila waxa weeye waxaan leeyahay 13 sano arintaas tagay maalin baa jawaab laga gaari lahaa dastuurkan hogaaminayo ogaadeenna waan ku fulini reer Fiqi Cumar waan ku fulini maxaa ku raay deegaanka Soomaalida waa lagu fulini iyadoo cidna laga hor istaagayna waxa weeyaan qabiil dadtiina dastuurka Itoobiya loo burburi karo tanaasul loogama sameyn karo maalin kasta reer Fiqi Cumar in lagu waalo maxaa ku raay shirkadan baa loo go'aamini gobol diaspora dad dibadda joogo lacag laga qaadayaa jira war arintaas soo bixinaysa lacag laga qaadi baa hadana la taagnay waxa weeye kuwa gudaha lagu jiray anagu dadkayga ee Raaso jooga ee lagu sheegay maxaan karo waxaan isbixinayna oo la dhigi bari halkaas aad ka mid noqonaysan warantaas soo bixinayso dastuurka fulintiisana cid kasta waa ku fulini ama reer Fiqi Cumar ha ahaado ama ogaadeen ha ama Soomaalida kala ahaado waa lagu fulini bari ninkii dambi galana de dastuurka oo baa xoog la saari horta taasan kala yahay inama iyo hal ogaado ururka ubbo reer Fiqi Cumar buu gumaaday ama dhibaato u geystay reer Fiqi Cumar kaliya gumaaday cid dhigi karta ma jirto reer Fiqi Cumarna wax uu yeelay kuwa sheeganay ogaadeen wax uu yeelay xasuuq fara badan buu geystay dadka meeshan fadhiyay waa dad iska warhaya deegaanka Soomaalida waad ka warhaysaan waxa xaqiiqa maalin kasta waxa ka dhacay ama Raaso joog ama maxaan ku raay meel kale joog deegaanka waxa ka dhacay nin kasta inuu maxaan ku raay si ama qaraabnimo ama ehelnimo ama waxa weeye maxaan ku raayay isku xidhnaansho kale in waxa ka dhaca deegaanka Soomaalida si uu ku soo gaadhayso habeen kasta taas iyada wax la qarin kara maaha
wax kasta oo ka dhaca deegaanka Soomaalida guriga dadka meesha fadhiya dhan ee conference-ga joogay in ay ka warhayaan waa xaqiiqo waxa xaqiiqo xasuuqa loo geystay Reef Cumar ee u geysatay in ka badan inay u geysatay dadkii uu sheeganayay inuu geystay marka waxa weeyaan waxa loo baahan yahay in si cad loo ogaado oo guriga loo cadaato balse laakiin ururkan ubo xasuuqiisu kuma ekayn Reef Cumar oo kaliya wuxuu gaaray Soomaali oo dhan buu gaaray kuwa si toos ah u gaaray iyo kuwa si dadban u gaaro kuwa horumarkii u diido xataa waxaan dhigi karnaa shinil u gaaray oo horumarkii maxaa ku raa uu laga qabtay markay jijiga horumar weydo shinil lama horumarin marka waxa xaqiiqa inuu deegaanka Soomaalida dhamaan xasuuqa iyo bulcadnimada ay geysatay ubo inuuna ahayn mid saameeyay Reef Cumar oo kale oo Reef Cumar dhihaynin oo kaliya ubo anaga ma naxasuuqday dawlad baanu hanano calan dayax sidiisii dalkii wada iftiisha dagaalkii baabanaye ilaahay hagadaye ama goolkii raaso qalbiga ku diirsada ama doorkii raaso qalbiga ku diirsada dawlad baanu hanano calan dayax sidiisii dalkii wada iftiisha dagaalkii baabanaye ilaahay hadaye dawlad baanu hanano calan dayax sidiisii dalkii wada iftiisha dagaalkii baabanaye ilaahay hagadaye si jawaab cad loogu helo su'aasha odhanaysa kama mid ahaanayna deegaanka Soomaalida waxaa hadalka qaatay afhayeenka golaha Federationka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Kaasatakle Burhaan isagoo si faahfaahsan u falanqeeyay su'aashaas jawaabteeda liyu warada liyu zone በፌደራል መንግስት የሚተዳደር የሚል ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ስላልሆነ መልስ ልንሰጥ አንችልም አራት ነጥብ የሸካሽ ጎሳ የሶማሌ ክልል አካል ነው አራት ነጥብ degmo ama gobol hoostaga federaalka isma bixinayso waa wax aan sharciga waafaqsanayn oo aan marnaba la ogolaan karin lana aqbali karin 10 sanana cabasho khaldan bay ahayd oo dastuurka dalka ka soo horjeeda dadka beesha sheekhash ama reer Fiiqa Cumar dawladda federaalku waxay u aqoonsan tahay in ay yihiin dad Soomaali ah waxaana laga maamuli karaa oo kaliya dawlad deegaanka Soomaalida intaasi kadib waxaa dhacay dood wax sheeg iyo istusaalayn u badan oo ay ka qayb qaahayeen qaar ka mida odayaasha culumaa diinka iyo haweenka ka soo qayb galay shirkani si xal loo gaadho
هذا هو محمد علي مسؤولية فضلات توكيك هي مدحوينها هي عشراتها لكن هو طبعا هو محمد علي هو هو بقول هي راسيج والأمم محمد علي ذلك وبجوبته وهو يقول على وبجوبته نفس الوضع على اليوم صدق هي توصلت إليك هي بيت من شيء سريع هو أيوه هيجي ما ترى وما خلص الدولة أنا ليش شغال بارا ده عالم أنا يقول بجوبي هودي بارا ده تكلمنا عن ما إنه مختار كيفاش أكيد استاجي كل الكصومالي ده أنا اللي وحنا مغلتني استجا الله دورتي سلطان إنه كيا كل وبعدين يا صومالي نم وحللي صومالي للنوران ما إنه وقوادي قرب شوك تاعي كل عضي واحد يسكت شيء والله إلى الشمبر إلى قدمتها إلى مناسبة واحد نقص كذا دكتين واحد يليسان نفس الكلام اللي كل عدونا وحال ليدي أغلي هدبون لقى شادول هدول لومي صدح يا توماس الله إذا كل البالة سوى ذا وأنا ما قال يسان دولتي ورسولنا وهذا علمي هي عقلي جيني واحد هذا علم هذا عقل هذا النتيجة دي إنه والله أركيه أنا سعونا النقطة عقل هي علم منا اللي كمان بحنا سواء كوي واحد وحبا هين ناقص كذا دقيق ما الكلام اللي دي كي يرهيا ما الكلام اللي دي كي يرهيا نفس ما إذا كنا هيا قرب شوكته هي أشرافته هي الدولة دا أنت إذن دول قاضي ليس بنتي أصدق هي طبعا كسر الله شيء كيستان كنت هدي بعد اللي دي شيء دتك قد فينا مالها كقد عنا واحد يليسان صومالي باتهين كسر نقطة بنقول الله شيء كيستان ليس صدق هي طبعا سنو هذا الكي وحاكي بهيا دتك أصور رالي هذا يجر رالي هذا لهم هاي وأنا كبحي أنا وهذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وحال إلى ذا أرضي يوسف وعمر وحانو نهي أنا قد رافق عمره تدور على أنو نهي وحيسو داما ويسو كان داما مهلينو أنا قوركو تالا وحانقوا دباتنا وحانقوا شري مركي أنو لباسا فوكلا فريسان markay qaybtana sacabeynaysa qaybtana aamusnayd dumarka raafiq cumar hadaanu nahay hooyooyinka hadaanu nahay annagu dagaal ma rabno dagaal ma doonayno waanu hor taaganahay haddii waxna la weydiinayo nalana soo marayo annaga dagaalmuuna dhaceen intaanu hor istaagnay waanu hor taagnay qadar rabbi bay noqotay imikana odayaashanada waxaanu ka doonaynaa dumarka waxaanu dawladdanada waxaanu ka doonaynaa dib oo dabadaysa qaxinuuna noogu dhicin dhibaatadanada in la hor istaago in laga fikiro in naloo daryeelo taana taasaan kaga baxayaa rag iyo dumarba wixii halkan loo fadhiyay waxay ahayd dhibaatadeenna innaga waxaana ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wixii xumaanaha idinku yimaada ma aha wax alle ka yimid ee waa waxay naftiinnu kasbatay bimaa kasabat aydiikum aan hal aqoonsanno xadhiggii ilaahay baan tuuray ilaahay baan ku caasinay khalad baa meel inaga soo galay xaaraan baa inoo dhuumatay xam baa inoo dhuumatay xasad baa quluubteenna galay
ficil la xaaraan ah baa inoo kala dhexgashay waxaa ina soo dhex galay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala sidii culimmadii iga horraysay waayeelkii iga horreeyay ay u yidhaaheen inuu huf ka dhigo oo hah ka dhigo oo wixii daantaa jirana dabayshu qaado wixii daantaa jirana daad ku qaado horaan idiin idhi wadajirkaad wax ku tihiin markaasaa raggiinnu wax noqonayaa markaasay gabdhihiinnu qiimo yeelanayaan inaad ka oohisaan dumarka inaad asay u saartaan dumarka war waxaan idin leeyahay waxaad dishay waa walaalka kaa dhimay oo kugu dhimay weeye adaa wax isyeelay adaa boqnaha isgooyey adaana faanaya wax guulahoo aad haysaa ma jirto guushu waxay ku jirtaa wadajirkeenna war daacad ka ahaada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu idin weyddiin wa uufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas'uula nin walowba saan hore idinku sheegay god baad geli mitir ama mitir iyo badh ama markii laguu dadaalo xabaalbilaash laguu sameeyo 2 mitir iyo 2 maroo cadcad baa ku raacaya 3 ba iska dhe ragga 3 qaydoo cadcad baa ku raaci waxaana lagu weyddiin camalkaaga raggaasi maanta waxay meesha u fadhiyeen 3 maalmood waxay raggaas xafiisyadoodii uga soo tageen hawlahoodii u soo dayaceen reerahoodii uga yimaadeen inaad idinku sharaf yeelataan oo nabad ku wada noolaataan war intaa ma adkayn kartaan haddaad intaa adkayn kari weydaan wallaahi aladii laa ilaaha hayru qiimo ma lihidin ilaahay hortiina qiimo ku yeelan maysaan dadka hortiisana qiimo ku yeelan maysaan midnimadu waa lagama maarmaan kow taas intaasaan kaga baxayaa allaha idin garansiiyo ta labaad mu'min oo dhan baa ilaahay yidhi innama almu'minuuna ikhwa kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah ayaa dadka walaala ka dhigtay war miyaan ku kufriyaynaa axaadiidta miyaan ku kufriyaynaa aayadaha soo celiya haddaba ree hebel ma arki kara iyo ree hebel ma jecli iyo ree hebel kan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wacfuu wasfaxuu saa haddaan la yeelin wax hagaagayaa ma jiraan saa haddaan la yeelin wax hagaagayaa ma jiraan dowlada baanu hanano calan dayax sidiisii dalkii wada iftiisha dagaalkii babbanaye ilaahay hadaaye doorkii raaso qalbiga ku diirsada doorkii raaso qalbiga ku diirsada dowlad baanu hanano dalkii wada iftiisha dagaalkii babbanaye ilaahay hadaaye dowlada baanu hanano calan dayax sidiisii dalkii wada isku soo wada duubo dadaalkaasi faraha badan kadib waxaa la xaliyey dhibkii iyo colaadii beesha sheekaash ama reer fiq cumar waxaa loo gudbay oo lagama maarmaan noqotay in la xaliyo arrinta siyaasadeed si xal waara loo gaadho xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalidu waxa ay go'aamisay in degmada Raaso oo hadda ka hor ahaan jirtay degmo 60% iyo 40% ahayna ku dagaalameen beelaha wadadega looga dhigo beesha sheekaash ama loo aqoonsado degmo 100% oo leeyihiin beesha reer fiq cumar ama beesha sheekaash halka dhanka kale ama beelaha kale ee iyaguna la degi jiray deegaanka Raaso si loo xaliyo cabashada ka iman karta iyagoo la tixraacayo ayaa waxaa la go'aansaday in degmo 100% ah la siiyo iyagana waxa kale oo ka mid ahaa go'aamada laga soo saaray shirkan
in dowladda federaalku hadda wixii ka dambeeya ayna qabanin isla markaasina ayna arki karin dacwad dambe oo ay leedahay beesha sheekaash ama reer fiqi cumar ayna noqdaan hadda wixii ka dambeeya kuwa u hoggaansama dastuurka dalka iyo kan deegaankaba iyo in dib u dejin loo sameeyo dadka ku barakacay isku dhacyada beesha sheekaash gudaheeda iyo beelaha hadda ka hor ku dagaalamay aaggaasi labadoodaba in dib loo soo celiyo dadkii u qaxay bakool ee ka mida beesha sheekaash ama reer fiqi cumar gabagabadii shirka beesha sheekaash ama reer fiqi cumar uga socday magaalada diridhaba ayaa waxaa ka qaybgalayaashii shirkani ka muuqday farxad raynrayn iyo weliba niyadsami iyaga oo uga mahad celiyey xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida iyo xukuumadda dhexe ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya dadaalka ay u galeen soo afjaridda jiitanka dhibaatada raaso shirkan ayaa noqday mid taariikhiya oo lagu kala saxeexday heshiis baaldahaba ka gala taariikhda oo raali geliyay labada dhinacba kaas oo ay saxeexeen odayaasha sheekaash ama beesha reer fiqi cumar kadib is-afgarad iyo heshiiskan dhexmaray labadii dhinac ee ishayay ee beesha sheekaash ama reer fiqi cumar ayaa waxaa iyana meesha ay ka qireen deegaanada Oromiya iyo deegaanka Herarida ee xukuumadda deegaanka Soomaalidu ku eedeysay jiitanka heshiiska deegaanka raaso ayaa cadeeyay in ay ku faraxsan yihiin heshiiska la gaaray ayna wax lug ah ku lahayn jiitanka arinta raaso የሚያፈራርስ አመለካከትም እምነትም የለው odayaal ayaa la soo galay arrintan ee waxa ay dawladdu ka ogeyd ma jirto waxaan aqoonsanahay in beesha sheekaash ama reer fiqi cumar ay yihiin dad Soomaali ah deegaanka Soomaalidana laga maamulo go'aanka ka soo baxay shirkanna waan taageersanahay haddaan nahay deegaanka Oromiya waxaanan eega si cad ugu soo jeedinaynaa dadka reer fiqi cumar ee ku sugan deegaankanaga gaar ahaan Bakool in ay ku laabtaan deegaankoodii raaso arrintani ma aha mid annaga noo taalla ee waa arrin u taalla deegaanka Soomaalida waxaanan taageersanahay go'aanka ay soo saareen dowlad deegaanka Soomaalida iyo weliba dowladda federaalkuba beesha sheekaash ama reer fiqi cumar waxay soo saareen baaq ku wajahan heshiiskan ay gaadheen shirka nabadgelyada maamulka suubad iyo horumarka ee loo qabtay beesha reer fiqi cumar ee deegaanka Soomaalida Itoobiya shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen wakiilada beesha reer fiqi cumar shirkaas oo wadajir u soo qabanqaabiyeen xafiiska golaha federationka iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaabiid 25 ilaa 27 2004 diridhaba Itoobiya sidaas darteed annagoo ah ka qaybgalayaashii shirkani saddexda beri socday waxaanu soo saaray baaq annagoo ah beesha fiqi cumar waxaan aaminsanahay dastuurka dowladda federaalka Itoobiya iyo kan dowlad deegaanka Soomaalida dastuurkani waanu ku dhaqmaynaa isla markaana hirgelinaynaa isafgarawa kasta waxaanu ku xalisanaynaa dastuurka waxaan caddaynaynaa inaan nahay shacab ka tirsan qowmiyadda Soomaalida Itoobiya go-aankii ka soo baxay dowladda deegaanka Soomaalida iyo golaha dowladda federaalka ee ahaa in deegaanka aan ku noolahay ee raaso oo ka mid ah dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya degmo noqotona waan taageersanahay kooxda nabadiidka ah ee wax u dhimaya nabadgelyada iyo midnimada isla markaana fidinaya warar aan sal lahayn waan la halgamaynaa horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee deegaanku bilaabay inuu hirgalo qaybtanada ayaan ka qaadanaynaa
si loo helo nabad heshiis waara iyo xasilooni shirweynaha wixii ka dambeeya in la soo celiyo walaalnimadii midnimadii wada noolaashihii hore beesha loogu ogaa waan u dhaqdhaqaaqaynaa. hadda wixii ka dambeeya su-aalaha dhanka horumarka maamulka suuban iyo nabadgelyada waxaan ku weydiisan doonaa si nabadgelyo ah, taasi oo waafaqsan dastuurka dalka oo keliya. hadda wixii ka dambeeya dastuurka dowlad deegaanka soomaalida iyo kafederaalka si buuxda u xurmaynaynaa una hirgelinaynaa, isla markaana ciddii sharci darro wata si adag baan ula halgamaynaa. kaasi wuxuu ahaa baaqii ka soo baxay shirweynaha beesha reer fuqul cumar. noloshii sadiiqa nabad baa u dooron anigu wuxuu ku tiirsado noloshii sadiiqa nabad baa u dooron wax dagaal alooso xasilooni dumiya hadday dabicdo waa nabad hadday dabicdo waa nabad wax dagaal alooso xasilooni dumiya hadday dabicdo waa nabad hadday dabicdo waa nabad sokeeyo dog waxa bogsiye dabiiba waa nabad takharada sokeeyo dog waxa bogsiye dabiiba waa nabad inay nabad duxleedahay dareenli kama sarnadaahe ummad yahay daryeela inay nabad duxleedahay ruuxii dareenli kama sarnadaahe ummad yahay daryeela inay nabad duxleedahay ruuxii dareenli kama sarnadaahe ummad yahay daryeela ku dadaala nabadana ku dadaala nabadana ku dadaala nabadana محمد يا صاحبني لأن بذكره مرضاة ربي فذكر محمد خير اكتسابي وخير تجارتي وحياة قلبي.
محمد وسلم دائما بذكره صار عسر الأمر يسرا بحبه نيل الوصل ثم قربي به يبغي المعاش بطيب عيش به يرجو النجاة اليوم كربي يا محمد عليك الله صلى يا محمد بسعيد السعيد كذاك يشقى شقي المرء من وجم وعرب به تنظر سماما وأرض به تنبت حبوبا مثل أبي عليك الله صلى يا محمد عليك الله صلى يا محمد وسلم دائما فلن الورى من غير شك كلا الكونين فاسمع يا محبي فالنور العرش من نور الحبيب كالنور الأرض من شرق وغرب عليك الله صلى يا محمد عليك الله صلى يا محمد وسلم دائما عمري فلولاه لما كان المكون له وجد الورى من غير كذب فكم له يا أخي من معجزات كقرآن المجيد والناصر العبي عليك الله صلى يا محمد عليك الله صلى يا محمد وسلم دائما عمري وتأييد الإله بيوم بدر بأملاك مصومة تلبي وشق له الولي بدر السماء وشق لصدره من غير عيب محمد عليك الله صلى يا محمد وسلم دائما وسماه بأسماء الحسان لصدره من غير عيب وسماه بأسماء الحسان لتبجيل وتكريم وقرب محمد عليك الله صلى وسماه لأن علي ببثي من القبر النبي وعليه هبي على أصل المدينة زاد شوقي وقبر محمد مختار ربي عليك الله صلى يا عليك الله صلى يا محمد وسلم دائما عادة كل عبد وقبلة حاجتي وحياة قلبه لعلي نرى يوما بضيبة لعلي أن أزور بخير تربي عليك الله صلى يا محمد عليك الله صلى يا محمد وسلم وسلم وزوقي حبيبي مع المحب
shirweynahani lagu nabadeeyey beesha sheekaash ama reer Fiqi Cumar oo ka dhacay magaalada Diridhaba ayaan wax ka weydiinay gabagabadiisii qaar ka mida ka qaybgalayaasha shirkan oo noo sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin heshiiskan nabadeed ee beesha sheekaash ama reer Fiqi Cumar ay gaadheen. waxa laga wada hadlay dhibaatooyinka ka jira beesha reer Fiqi Cumar waxa aad looga wada hadlay in dhibaato badan ay soo gaadhay dadka reer Fiqi Cumar oo muddadii 20 sano ahayd ay ka qayb qaadan horumarka waxa la isla gaadhay markii wixii la doodaba go'aamo ayaa ka soo baxay marka shirka waxaan arkaa shir taariikhi ah oo dadka reer Fiqi Cumar aad uga faa'iideysanayaan dadkuna ay dawlad deegaankii Soomaalida horumarkeeda iyo nabadgelyo ay ka qayb qaadanayaan marka bal maanta heshiiskii waa la gaadhay waa la saxeexay dadkii maaragtay isku dhac ka dhaxeeyana way heshiiyeen talaabada tan xigta maxaad dhigi kartaa in heshiiska maanta uu hirgalo talaabada tan xigta waxa weeyaan iyada oo golaha federationka iyo madaxweynaha dawladdeegaanka Soomaaliya ay meesha wada fadhiyeen iyo aqoonyahaankii odayaasha reer Fiqi Cumar oo dhan waxaan u arkaa talaabada xigta in laga shaqeeyo sidii nabadgelyada dib u dejinta magaranaysaa horumarka ka qayb qaadashada maamulka suuban iyo sidii horumar development degdeg ah looga sameyn lahaa deegaanka Raaso dadkii baraqaxay iyo dadkii dhibaatooyin dib u dejin degdeg looga sameyn lahaa talaabooyinka xig kuwaas ayaan u maleynayaa insha Allah khayr baa ka soo bixi doonay nabadgelyo horumar maxaa laga sugayaa dadweynaha iyo ku nool degmadaasi iyo waliba heshiiskan maanta la gaadhay ee lagu bixiyay waqti badan kharash badan dad badan ay ka soo qayb galeen dal iyo dibad gudihiisaba si heshiiskan uu noqdo mid miro dhala bulshada dhinacooda iyadana maxaa laga sugayaa waxaan bulshada dhinaceeda laga sugayaa in ay ku qancaan shirkan wada tashiga iyo nabadeynta beesha reer Fiqi Cumar oo ay dadweynaha aan ka qayb gelin shirkanna ay ogaadeen in maanta reer Fiqi Cumar uu mid yahay uu heshiis yahay uu u taagan yahay horumarinta deegaanka Raaso iyo mideynta beesha reer Fiqi Cumar dadka jooga ay ogaadaan kuwa shir ka qayb galay waxaan sheegay inay wada gaarsiiyaan walaalahooda reer Fiqi Cumar ee ka maqan hadda shirka inay gaarsiiyaan una sheegaan in nabadgeliyo iyo midnimo la qaatay dawlad deegaanka Soomaaliya laga mid yahay horumarka deegaankeenna iyo dadejinta horumarka inaan ka wada shaqeyno dhibaatooyinkii farabadnaa ee 20 sano soo jeedinay reer Fiqi Cumar in hadda laga soo bogsado oo magaranaysa waxbarashadii caafimaadkii biyihii dib u dejintii waxtarkii agoonta waxaas dhan in laga wada shaqeeyo oo dad gacmaha is qabsada noqdaan oo dawladooda iyo dastuur ku kalsoon noqdaan ayaan soo jeedinaa insha Allah waxaan ka qabnaa rajo fiican ayaan ka qabnaa in arrintaas hirgasho insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Xaaji Wacdi Aadan Maxamuud waxaan ka mid ahay qurba joogta dibadda jirta ka timi waxaan ka imid waddanka Finland la yiraahdo waxaan u imid arrimaha reer Fiqi Cumar dib u heshiisiintan Ilaahay meesha ka riday hadda iyo dhexgalkooda iyo inaan wax ka qabanno daraadeed baan masaafo dheer u soo goynay dhowr kun oo kiiloomitir Ilaahayna uu nagu guuleeyay maantana gabagabadii baan taaganahay oo si qurux badan oo wanaagsan u dhacday qodobkaasaan u imid halkaana waan ka imid صح sidaa tilmaantay qurba joogta deegaanka u dhalatay dalka dibadda ku nool ayaad ka mid tahay isla markaana shirkan qiimaha badan ee maanta lagu qabtay magaalada Dirdhaba goobjoog baa ka ahayd ka qurba joog ahaan bal idinka kaalinta leedinkaga fadhiyo maxay tahay si heshiiskan maanta la gaadhay oo u noqdo heshiis miro dhal ah oo ay maaragtay dhibaatooyinkii dhaxmaray dadka lagu xalliyo loogana tallaabsado dhibaatooyinkii jiray waxaan u arkaa arrinkii soo jireenka ahaa ama soo dhexmaray dadkan inuu maanta soo gabagaboobay annagana waxaa nagaga habboon kaalinta ugu wanaagsan inaan ka qayb qaadanno haddaan nahay qurba joogta reer Fiqi Cumar ee dibadaha jooga intayada ka soo qayb gashayna inaan inta dibadaha jirto oo dhan warkaa gaarsiinno in nabadgelyo guud ahaaneed la gaadhay reer Fiqi Cumar dhexdiisa iyo dadka la nool ee jaararka la'ana aan nabadda gaarsiinno nabad iyo horumar inaan ku wada noolaanno annaga dhexdeeda iyo ummadda aan jaarka nahayba intaasaan gaarsiinaynaa dadka dibadaha jooga wixii aanu qaban karra eenu u soo tari karra dalkayaga iyo dadkayagana waanu soo qabanaynaa horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo limaadkiisana waan ka qayb qaadanaynaa shacabka bal fariinta aad u gudbinaysid iyada shacabka deegaanka ku nool waxaan shacabka reer Fiqi Cumar ee deegaanka Raaso iyo hareerihiisa ku nool u gudbinayaa fariin aad u qaali ah waxaan leeyahay wixii dhacay wuu dhacay wax dambeeyay dhicin
ka imid jigjiga midhaha ka soo baxay shirka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana mahadda iskale ugu horrayn allah subxaanahu wa tacaala waan ku mahadinaynaa waxaa kaloo iyadna mahadle dowladda dhexe federaalka xubnihii hogaaminaya shirka iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar oo runtii aad iyo aad isugu dhabarjabiyey oo la odhan karo wuxuu u horay naftiisii wuxuu u horay maal wuxuu u horay ra'yi iyo xubnihii kale ee isaga garab taagnaa iyaguna mahad bay leeyihiin waxaa kaloo iyagana mahadle oon iyagana mahad u soo jeedinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaashii ka socday dhinacyada kala gedisan beesha reefiq cumar hadday yihiin dumarka hadday yihiin ragga hadday yihiin dhallinyarada hadday yihiin qurba joogta aad iyo aad bay u mahadsan yihiin intaa kadib midho fiican baa wallaahi ka soo baxay aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay midhaha ka soo baxay waxaa ka mida kow midnimada ayaa ka mida wixii khilaafaadee jirayna in bannaanka loo daadiyaa ka mida waxaa ka mida in lagu midoobay in la qaato distoorka dalka ka federaalka iyo ka dowlad deegaanka inay yihiin dadkani dad Soomaaliya oo xuquuqdoodii dowlad deegaanka Soomaalida ay ku jirto madaxweynuhuna boqolkiiba boqol arinta aad iyo aad u soo dhaweeyay inuu diyaar u yahay inuu beesha reefiq Cumar uu siiyo wixii kartidiisa xuquuqdooda uu iskarab taago inta kadib dowladda haddaan ku horeeyo waxa laga sugayaa heshiiskii ama qodobadii qoraa inay hirgeliyaan oo waliba si degdeg ah u hirgeliyaan waayo dadku way yardideen oo xogaa didma ku jirta didmadaasi si looga baxo in ay wax lagu aamino inay dawladdu la timaado oo shacabku ay ku aaminaan oo shacabku ay ku aqoonsadaan inay dawladdoodii tahay inay u naxariis badan tahay inay dantoodii ka shaqaynayso inay waxbarasho siinayso inay caafimaad siinayso inay biyo siinayso dawladda taasaa laga rabaa waxyaabaha kale iyadna laga raba degdeg intay is-aaminka uu dhacayo oo howlahaas si toosa looga boganayo nabadgelyada amniga in la ilaaliyo oo ciidamada dawladda dhexe iyo kuwa deegaankuba inay amniga si buuxda miyi iyo magaalo labadaba uga qayb qaataan oo waayo amniga haddaan laga qayb qaadanin dee wixii kale wuxuu iska noqonayaa wax aan sugnayn amniga ugu horeeya noloshii amniga ugu horeeya amnigaasi inuu noqdo amni hirgala wixii kale ee horumarina halkaa uu ka sii bilowdo xagga beeshana waxaa laga rabaa dawladdooda inay soo dhowayso distoorka inay qaadato inay dawladdooda si fiican ula shaqayso inay nabaddiidka la dagaalanto nabaddiidkoo kale inay la dagaalanto say beelaha kaleba ula dagaalameen inkastoo aaggaasi aag nabaddiidka ka caagan uu ahaa haddana inuu ka sii caaganaado oo wax nabaddiid la yidhaha aaggaa una soo gelin inay dawladdooda isgarab istaagaan inay dawladdooda jeclaadaan wixii ay u baahan yihiinna si sharciyan inay ku weydiistaan موافقة إيو من نمنا أي واعتصموا بحبل الله جميعا أبو الله سبحانه وتعالى حرق إلهي قبصة دمانتين به إن من نمنا الله قبصده إن موافقة الله يشو إن عدي نبتقلية ذا كهر تمادا ران لقا وضع النقضة وهي هدين نبتقلية ذا عدة كهر تمادا ران لقا وضع عدة اسمه قولي سنيس إن وحي لقى تنازله cid waliba waxay qabtay oo ay banaanka iska dhigto wixii bulshada u dana laga midaysnaado kulli waxyaabahaas oran lahaa magacayga oo saddexan waxa la yiraahdaa Axmed Yaasiin Iimaan Sheekh Maxamed waxaan ka socdaa gobolka ismaamulka Soomaalida magaalada caasimadiisa Jigjiga horta ma cabiri kara maanta farxadda iyo qiimaha ay ugu fadhido waxaan ka sheekayn kara ma aha waa maalin taariikhi ah oo xusuustan loo gali doonta 25 yakaatiid saddexda maalmood oo shirku socday waa maalin looga tilmaaman maalmihii caadiga ee soo mari jiray sababtu waxa weeye ummadan reefiq Cumar leeyahay dhibaato badan bay soo mareen ama dhexdooda han noqoto tii u dambeysay ahayd ama kuwa hore han noqoto deegaanka Soomaalida iyo dawladda Itoobiya horumarka ka socda way ka hadheen marka maadaama dib ay ugu soo noqdeen oo taariikhdii ay ka soo qayb galayaan waxaan ku faraxsanahay maanta shirka weyn ee maanta konferenska ee ka dhacay ummadii qaban qaabisay ee dawlad deegaanka Soomaalidu ka mid tahay dawladda federaalka aad baan ugu mahadnaqaynaa hawsha badan ay u soo mareen hantida badan ay ku bixiyeen iyo siday hagar la'aanta ah ay u soo abaabuleen baan uga mahadinaynaa annagana waxay noo tahay maalin wax ku oola oo aanu dib u soo noolaanay waanu dhimanay oo dad dhaqan ma aanu ahayn maalin aanu dib u soo noolaanay bay noo tahay ummadda ka soo qayb gashay martida kalena waanu u mahadnaqaynaa kilalka Oromiya ka Hareeriyiinta ummadda Soomaaliyeed madaxdeeda ismaamulka Diriraba madaxda Soomaaliyeed ka soo qayb gashay waanu u mahadnaqaynaa
annagana farxaddaas inoogu fadhidaa maanta waxaa la yidhahdaa umayma maxamuud caaqil waxaan ka imid deegaanka raaso waxaanahay dadka reer Fiqi Cumar ah ee deegaanka raaso degan mar horiyo mar dambe dhibaato ay ka jirtaba sidaa darteed waxaan u mahadcelinayaa dawladda federaalka ee golaha dhexe madaxweynaheedaan u mahadcelinayaa ka Soomaalidaan u mahadcelinayaa dhammaanba dadka ka soo qayb qaatay baan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa ummadda reer Fiqi Cumar inay danteeda qabsato meesha isugu timid baan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa wax kasta oo nagu liitaba nabad darrada nagaga liidatay waxaan u mahadcelinaynaa nabadda noo soo noqotay waxaan u mahadcelinayaa Fiqi Cumarna noo soo noqotay waxaan u mahadcelinayaa maanta macaankaanu taagannahay waxaan ka mahadcelinayaa shalay dhibaatadii nagu taagnayd maanta saan nahay baan maantadan baan u mahadcelinayaa maanta maalin weyn weeye maalin reer Fiqi Cumar ku farxa weeye waxa la qaadanaya waxa ka muuqaal badan oo ka wanaagsan Fiqi Cumarnimada ka wanaagsan boqolkiiba boqol Fiqi Cumarnimadan kaga kalsoonahay boqolkiiba boqol Fiqi Cumarnimadan ka soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol Ethiopianimadan ka soo iyadana aan ku mahadcelinayaa calankanaga nabadeen hoos joognaan ku mahadcelinayaa sida in loo qaabilay baan ku mahadcelinayaa ummadda dhammaanba ashraafta iyo Soomaalidaba sida ay uga qayb qaateen baan u mahadcelinayaa sida noo soo dhaweynayaan u mahadcelinayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin baan leeyahay maanta waa dhibaato kastoo na soo martay halkay maanta marayso darteed baan u mahadcelinayaa maanta waxaan ku faraxsanahay sida ay halkay joogto Fiqi Cumarnimada waan ku faraxsanahay ciyaalkanaga ma garanaysa dhibaatadii soo martay inaanu ka baabi'ino iyo haweenkanaga iyo carruurtanadan u mahadcelinayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin baan leeyahay aniga xukun Sheekh Xasan baa la yiraahdaa waxaan ka socdaa raaso dadkii u dhashay baan ahay waxaad ka mid tahay haweenka ka qayb qaatay shirkan heshiiska sidoo dhacay iyo wixii ka soo baxay bal naga waran marka anigu waxaan ahaa dadkii u socday nabad dhalinta ilaahay baa dhaliya gudidii noo gurmatay iyo dadkii dirdhaba ee wanaaga iyaga jeclaana aad bay u mahadsan yihiin waxaanu maanta guga noo curtay wuxuu yahay annaga oo xaqa iyaga iyo xuquuqda iyadaba waxna la siiyey iyo waxna loo ballan qaadayba ah marka waxa wanaag ah maanta tii aanan qabin ee dawladihii hore ayna nasiinin tan ninka nasiiyay madaxweynaha iyaga Cabdi Maxamuud Cumar baa horta ma hadda iska leh dadna gudidii noogu hawlgashay ee noo doontay ee noo gurmatay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ee cid walba lahayd maanta reer Fiqi Cumar jiraan nahay isku duuban meel ka duulaya meel wax ka wada doonaya gacmo kaliya wada laacaya walaala isku farbaanu nahay Fiqi Cumar laba maaha waa hal mida shala haday laba ahaayeen maanta mid baan nahay mid baana wax ku doonaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay taa inoo suurta galiyay yaa ma hadda iska leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin assalaamu calaykum magacayga waxa la yiraahdaa Ruqayya Sheekh Xasan aniga oo salaamaya dadweynaha waxaan ka imid Bakool iyo halku reer Fiqi Cumar joogo aniga oo taraag dheer soo galay taraaga aan soo galayna waxaan horta salaamaynaa dawladda iyo dadweynaha meesha isugu yimid baan kolka hore salaamayaa noocu dooniba ha noqdo ama Fiqi Cumar ha noqdo ama Soomaalida kale gadisana dalalka kale timid ha noqoto ninkii buucaadan maanta joogo dhan baan salaamayaa salaanka bacdi annaga oo taraag dheer soo galay taraaga aan soo galayna muhiimadeedu ay ahayd muwaafaqada iyo xalka nabadeed ee reer Fiqi Cumar inaanu gaadhno oo nu doonaynay taa daraa'igeed eegana maanta guushii aan doonaynay inay dhalatay baad moodaa guusha aan doonaynay waxaa ka koow ah nabadgeliyada reer Fiqi Cumar iyo addoomaha ilaahay kalaba mar haddii ay dawladdu noo ballan qaaday nabad inay noo saxiixday iyaduna annaguna ammaanka inaan sugno oo wixii dhanqaryo nagu keeni ee dhibaato nagu keensanaya inaan ka tanaasulnaanu rabnaa marka taa daraa'igeed baan jidka u soo marray tiina inaan heloon guusheedii maanta gaadhnay bay u eg tahay allaha noo sii weyneeyo madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar aqoon uma naalahayn hadda ka hor maantaan sa aqoonsannay aqoontiisa hadda ka hor maanaan aqoonin magaciisa baan maqlaynay muuqiisana maana arki jirin wax ku tarkiisana maana arki jirin laakiin maanta sida noo muuqata inuu wax noo tarhayo ekaysiinayo xaaladdu u suganta marka saasaan u mahadcelinaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم مقعيق وشكري بدل العرب وحانا قبلها الدولة ديغان كصوماليدا ودشا غارهان دغمدا راسو waxaan salaamayaa madaxweynaha sharafta leh mudane Cabdi Maxamuud Cumar waxaan ahay gabar reer Fiqi Cumar waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shirka maanta dhacay ee nabadda ah
waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada waan idin soo dhaweynaynaa meel walba oo joogtaan dalka iyo dibaddaba waxaan salaamayaa afhayeenka baarlamaanka kaasisaay waxaan salaamayaa dhammaan dadka aan martida u nahay ee reer Diridhaba waxaan leeyahay walaalayaal saad noo soo dhaweyseen aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waan idin soo dhaweynaynaa Raafiq Cumar hal baan nahay haddaan shalay laba ahayn maanta hal baan nahay aad iyo aad ayaan u faraxsanahay qurba joogti baan salaamayaa waxaan aad u salaamayaa dawlad deegaanka Soomaalida heer federaal iyo heer kililba waan salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaah dawlad baanu hanano calan dayax sidiisii dalkii wada la ibtiisha dagaalkii babbanaye ilaahay hagadaye ama goolkii raaso qalbiga ku diirsada qalbiga ku diirsada dawlad baanu hanano calan dayax sidiisii dalkii wada iftiisha dagaalkii babbanaye ilaahay hadaye dawlad baanu hanano calan dayax sidiisii dalkii wada la iftiisha dagaalkii babbanaye ilaahay hagadaye